assalaamu calaykum walaal maanta waxaan rabaa in aan ku siiyo tusaale ku saabsan laba waddo ee ila dhegayso. Tusaale, waxaa tahay qof musaafir ah, kaligaa weeye, kadib waxaa si kadis ah hortaada ka soo baxay laba waddo. Mid waa waddo buuraley ah oo adag tahay in la fuulo, midna waa waddo fudud oo dhow. Waddada ugu horrayso oo buuraleyda ah sidoo kale waa waddo shiido ku daadsan iyo godad ku qodan. In la maro ama lagu socdo way adag tahay, laakiin waddada horteeda waxaa lagu taagay taalad oo ay tilmaamayso si weliba ay waddadan shiido ugu daadsanaadaan ama buuraley u tahay, haddana waa waddada saxda ah oo aad ku gaarayso magaalada aad u socoto iyo dantaada. Waddada labaadna waa waddo geedo la harsado ay ku yaalaan, sidoo kale dhinaceedu waxaa ku yaala muqaahyo iyo meel lagu ciyaaro. Muqaahyada waxaa yaala wax weliba qalbigaaga macaansado, indhahaagana ay ku farxaan, dhagahaaguna ay ku raaxaystaan. Laakiin waddadani iyana waxaa lagu taagay taalad oo ay tilmaamayso in waddada ay tahay waddo halisteeda badan, dhammaadkeeduna waa god mool ah oo geeri iyo halaag badan ku jira. Haddaba labadan waddo midkee mari lahayd adig? Waxaase shaki ku jirin inaad dooran lahayd waddada fudeedka ah oo lagu helo raaxo dhammaystiran. Haddaba tani waa tusaalaha waddada jannada iyo waddada naarta. Waddada naarta waa waddo wax weliba oo macmacaansi iyo raaxo ah lagu helo, naftuna ay jeceshahay. Waddada jannaduna waa waddo adkaan iyo dhib lagu gaaro. Waa waddo ku farayso inaad naftaada khilaafto. Dhammaadka hadalkaygu waad arkaysaan labadan waddo. Haddaba ha raacin waddada fudeedka ah oo raaxo iyo nafjacayl. Kuwani waxay ku xiran yihiin geerida. Mar haddaad geeriyooto, aad ku geeriyooto adigoo raaxaysanaya, naftaada waxay ku farayso aad samaynayso. Haddaad saas ku geeriyooto, cadaab daa'im ah ayaad ku jiree. aakhiro aan doorano. Wassalaamu calaykum.